idin wadaa akhbaar la yaab leh oo ay soo saartay xukuumadda madaxweyne Donald Trump iyo xertiisa ku weegaaran odayga. akhbaartan ayaa waxa ay noqotay mid shock ah oo la yaab ku noqota dad badan oo Amerikaan ah. akhbaartaasna waxa ay ku saabsan tahay waxa ay bilaabeen dadka maxkamadda ay siisay dalka inay ka baxaan waxa loo yaqaano removal order amar ama go'aan ay ka qaadatay maxkamad immigration ah oo amar lagu siiyey inay dalka ka baxaan waxaa u bilaaban doonta bay yidhaahdeen maalin kasta oo ay ku nagaadaan dalka Maraykanka marka warqadda ay ka helaan jaajka warqaddaas oo ah in dalka ay ka baxaan waxaa u bilaaban doonta in la ganaaxo $998 maalin kasta oo ay ku sii nagaadaan dalka Maraykanka kadib markii ay helaan warqadda removal orderka ama dalka inuu ka baxo looga codsanayo ama maxkamadda ay ku xukuntay. marka lacagtaas waxa ay ku leeyihiin waxa ay gaari kartaa ilaa $1,800,000 waa garan kartaan haddii ay soo rogeen maalinkii in $1,000 qofka lagu xukumo lama la jaaj gareeyo maalin kasta oo dalka ku nagaato markaa warqadda hesho kadib waxaa lagu jaaj gareynayaa bay yidhaahdeen $998 si marka balaankan ay u dhaqangeliyaan waana warka ugu weyn oo la yaab kale si balaankan marka ay u dhaqangeliyaan waxa ay sheegeen in ay rabaan in ay soo saaraan go'aanka marka ay qaataan kadib waxa ay hayrgareysteen qolyahan lacagta deynta dadka ka soo ururiya oo debt collectorska loo yaqaano oo deymaha dadka lacagaha lagu leeyahay xooga ku saara oo maxkamadeeya inay lacagta iska bixiyaan buu hayrgareysatay dowladda sidoo kale waxa ay soo shaqaalaysiisatay baa la yidhi in qolyahan canshuuraha ee IRS-ta lacagaha canshuuraha ah oo ay samaystaan ay xaqa u lahaayeen inay dib u helaan qofka markuu shaqeeyo waxaa sanadkii uu xareeyaa lacagta income taxka lacagtii usoo noqon lahaydna waa laga qaadanayaa marka lacagtii kuusoo noqon lahayd waa laga qaadanayaa xaggan penalty baa kaaga socota iyo ganaax xaggan kale waxaa kaaga socda maalinkiiba $1,000 oo ganaax ah iyo lacag ay soo rogeen waxaa marka lacagtaas ilaa civil penalty waaye oo xabsi ma aadaysid oo ma lagu xiraayo waa civil caseka waa ganaax lacageed marka ujeedka ay ka leeyihiin sida ay qorayso jariiradda ugu afka dheer Maraykanka New York Times waxay sheegayaan in arrinkan ay uga dan leeyihiin inay pressure ku saaraan iyo cadaadis dadka soo galootiga ah oo loo qoray warqadda removal orderka haddaba ma heli karnaa arrinkan si looga nabadgalo arrinka isaga ah jawaabtu waa haa sida ay hadalka u dhigeen weeye baan idinku siin doonaa hadduu ilaahay idmo waxa ay sheegeen qofka haddii uu isticmaalo aabkii ay soo saareen 1PP-ga ahaa oo aad self deportation isku samayso adiga haddaa istarxiisho oo aabkanna waa aabkii ay ugu talagaleen dadka inay kaga tarxiilaan dalka qofka haddii uu iskii marka warqadda lasoo siiyo maxkamadda ay soo siiso iskii uu isu tarxiilo waxay sheegeen in qofkaas lacagtaas oo dhan laga cafinayo tan labaadna waxay ku soo dareen in xoogaa yar oo diyaaraddina laga bixinayo xoogaa yar oo stipend ah oo gacan qabsi waan Soomaaliya daanahay xoogaa gacan qabsina la siini doono oo yar aan badnayn yuftucuulah laakiin muhiimadda waxa waaye waxaa laga cafin doonaa baa la yidhi lacagtii faraha badnayd oo ganaaxa ahayd oo uu soo rogayey maamulka madaxweyne Trump marka lacagtan waxay gaari kartaa ilaa $1,800,000 intay gaarayso waa lagugu socodsiinayaa maalin kastana waxa kugu soconaysa $1,000 marka war cajiib ah oo la yaab leh buu noqday warkaas waxaa marka ka hor yimi qolyaha u dooda arrimaha immigrationka u dooda oo dadka soo galootiga ah immigrantska qolyaha u dooda ayaa iyagu
waxa ay sheegeen in ganaaxaas $1,000 maalinkii ah uu lacag aad u fara badan uu yahay. waxaa kale oo maxkamado iyo lawsuit lala aaday lagu samaynaya oo maxkamad lala aaday go'aankan isaga ah. marka waxa ay ku doodayaan dadkaas qofka marka loo qoro removal orderka dalka in uu ka baxo ama laga saaro, waxa ay ku doodayaan in qofka uu weli chance uu leeyahay oo ama maxkamado u socdaan ama leen kale uu helay ama si kale oo sharci uu ku qaadan karo uu helay. marka arrimahaas iyaga ah oo maxkamadaha ka socda caseska pendingka ah weli aan go'aanka laga gaarin bay waxay ku doodayaan inay dhibaato keeni karto qofka in maalinkii $1,000 iska ganaaxo dalkana laga saaro ama dalka in uu ka baxo lagu qasbo isaga oo kayskiisii weli uu pending yahay oo go'aan aysan ka gaarin maxkamad immigration ah. marka arrinkaas ayaa ka soo kordhay maamulka madaxweyne Trump. markaad fiiriso waa arrin cajiib ah oo war weyn ah oo soo kordhay. ma aqaano inta qof oo Soomaaliya oo haysata warqad removal order dalka ka baxa. waxaa la yidhi ilaa hadda 100,000 oo qof baa warqad notice ah loo soo diray dalka isaga baxa haddii kale ahayn $1,000 hal idin charge gareeyo maalinkii ilaa 1,800,000. marka waxaan fiirin doonaa maxkamadaha waxa ay ka yiraahdaan arrinka isaga ah oo maadaama aan sheegnay in ay socdaan dadaallo dadka u dooda soo galootiga iyo immigrantska dadaallo ay ka wadaan maxkamadaha Mareykanka oo ay rabaan inay ku joojiyaan arrinkaas isaga ah. marka insha Allahu tacaala waxaan intaas ayaan ku soo koobaynaa akhbaarteennii ku saabsaneyd xagga soo galootiga. wixii kale oo cusub oo soo kordhana waan idinla soo wadaagi doonaa haddii ilaahay idmo. haddaad nagu cusub tahay don't forget to subscribe, like and share the video insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Peace.